salaamullaahi calaykum. ku soo dhowaada taariikh kooban oo aynu uga hadlayno madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya, mudane aadan cabdulle cismaan aadan cadde. aadan cadde waxa uu ku dhashay degmada Jawiil oo ka tirsan gobolka Hiiraan, 32 kiiloomitir ayayna u jirtaa xarunta gobolka ee Beledweyne. sanadkii 1908 ayuu ku dhashay degmada Jawiil. waxa uu waxbarashadiisii dugsiyada qur-aanka, dugsiyada hoose iyo waxbarasho heer sareba ku qaatay magaalada Muqdisho, wuxuuna wax ka bartay maamulka iyo dowladnimada. wuxuu sameeyey dhaqdhaqaaq ganacsi intii uusan ku biirin xisbigii leegada ee SYL bishii Febraayo sanadkii 1944. sanadkii 1946 wuxuu ka mid noqday xubnihii maamulka ee xisbigaas. waxaa loo doortay in uu noqdo xoghayaha xisbiga ee degmada Beledweyne. wuxuu sanadkii 1951 noqday maamulihii gobolka Mudug, halkaas oo uu wakiil buuxdana uga ahaa xisbigii leegada ilaa laga soo gaaro 1953. sanadkii 1953 waxaa gumaysihii Talyaanigu u xushay inuu noqdo ku-xigeenka maamulkii maxmiyadda ee loo yaqaanay Territorial Council. sidoo kale 1954 waxaa loo doortay guddoomiyihii xisbiga leegada, xilkaasina uu haayay ilaa laga soo gaaro bishii Febraayo 1956. bishii Maarso sanadkii 1958 waxaa loo doortay mar kale xilka ugu sarreeya ee xisbigii leegada iyo guddoomiyihii golihii lagu magacaabi jiray Somali Legislative Assembly. xilkaasina wuxuu haayay ilaa 1dii bishii Luulyo sanadkii 1960. sanadkii 1956 waxaa golihii lagu magacaabi jiray Territorial Council loo beddelay Legislative Assembly. waxaa mar kale Talyaanigu gacan ku siiyey in uu noqdo xubin ka tirsan golahaasi, waxaana laga soo doortay magaalada Beledweyne. doorashadaasi kadibna waxaa loo doortay inuu noqdo guddoomiyihii Somali Legislative Assembly. sanadkii 1959 doorashooyin guud oo dalka ka dhacayna waxaa loo doortay mar kale xubin iyo inuu noqdo guddoomiyaha golaha sharci dejinta koonfurta ee dalka Soomaaliya, wuxuuna xilka haayay ilaa golihii sharci dejinta uu noqdo Constituent Assembly. taasna waxa ay u saamaxday in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee soo mara dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya kadib markii ay midoobeen labadii gobol waqooyi iyo koonfur ee Jamhuuriyadda Soomaaliya 1dii Luulyo 1960. golihii baarlamaanka ee ugu horreeyay oo ay Soomaaliya yeelato 1dii Luulyo 1960 uuna guddoomiye ka ahaa mudane Xaaji Bashiir Ismaaciil Yuusuf ayaa ku dhawaaqay midnimada labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur iyo dhalashada Jamhuuriyadda Soomaaliya, una doortay mudane aadan cabdulle cismaan aadan cadde in uu noqdo muddo 1 sano ah madaxweyne ku-meel gaar ah. sanad kadibna waxaa loo doortay inuu noqdo madaxweyne muddo 6 sannadood ah, wuxuuna dalka madaxweyne ka ahaa muddo 7 sano ah. madaxweyne aadan cabdulle cismaan wuxuu ku hadli jiray afafka Talyaaniga, Ingiriiska iyo Carabiga. doorashooyinkii dalka ka dhacay sanadkii 1967 waxaa looga adkaaday doorashooyinkaas, wuxuuna xilkii madaxweynenimo ku wareejiyey madaxweynihii ka dambeeyey ee Cabdirashiid Cali Sharma Arke. aadan cadde waa madaxweynaha keliya ee Soomaali iyo Afrika Madowba ugu horreeyay ee si sharaf leh xilka ku wareejiyey, kuna mutaystay in adduunka laga xushmeeyo ilaa iyo maanta. ilaahay ha u naxariistay aadan cabdulle cismaan
wuxuu bishii Juun 8 sanadkii 2007 ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Aadan Cabdulle Cismaan, madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee sida dimuqraadiga ku wareejiyay xilka, waxaa lagu aasay magaalada Muqdisho 11 bishii Juun isla sanadkaas. Geeridiisa kadibna waxaa loogu magac daray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cabdulle International Airport. Halkaas ayaan ku soo koobaynaa taariikhdii koobneed ee ku saabsaneed madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Soomaaliya, Mudane Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde.